ninkii Kolasinac ah isna uu ku laabanayo horyaalka Jarmalka uu ku laabanayo arrimo family darteed marka ninkaas uu ka baxaya yaa u baahan ninkan maxaa la yiraahdaa Kolasinac xoog weyn markii Özil feer labada habad baadiyay hadda kor Özil buu baadiyay waxa darsan haysata ninka lagu magacaabo Tierney oo nin wax qadara ah khatar badan sameynay weeyaan marka ka inuu halka aad laga yaaba goolahayaha lagu magacaabo Ruben Alex Henderson oo ah goolahayo u dhashay wadanka Iceland waa goolahayo u bedelay Emiliano Martinez tijaabada ayuu hadda ku maraya baa leeyahay London ciyaartooyga Arsenal ugu wareegaya 1.6 milyan ugu wareegaya laakiin ogaada leeyahay goolahayahan aad u wanaagsan baa leeyahay maxay yeelay waa ninka kooxdiisa u ciyaari baa lagu leeyahay 60 waa ninka kooxdiisa u ciyaari baa lagu leeyahay 60 iyo 1 ciyaarood lagana dhaliyay 60 iyo 1 gool 60 kulan buu ciyaaray 60 gool laga dhaliyay kulmadu ciyaari illa mid baa lagu leeyahay iska jira leeyahay aad u macluumaad badan leeyahay macnaha laakiin wuxuu noqon doonaa goolahayaha labaad uu noqon doonaa Europa League Cup waxa isaga qaban doona kulay marka Arsenal goolahayaha qaadanaysa waa kaayo marka ninka tijaabada u maraya mid kale waxyaabo ugu weyn marka maanta tijaabada maraya ninka waa Arsenal u baday ninka mid kale Arsenal Husam Or aad u rajinayaan balina qaadan karaan inta kale isugu ciyaarto wixii maxay Husam Or isaga ku dhiisa ayaa doonay baa leeyahay inuu ku biiro baa leeyahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal marka Husam waa ninkii Lyon ee Man City waalay weeyaan hadaba wariyaha lagu magacaabo Fabrizio Romano wuxuu leeyahay Husam isaga ayaa rabaa leeyahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee The Gunners